maayirka magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe oo maanta qaar ka tirsan warfidiyaanada kula hadlayay xafiiskiisa gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu si dareen leh uga hadlay dabkii baabiyay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ee Waaheen waxaana uu sheegay in dareen murugo leh uu la qaybsanayo shacbiga magaalada Hargeysa iyo ganacsatadii danyarta ahayd ee dabkaasi uu ka baabiyay suuqooga waxaynu ognahay in dhibaato baaxad leh ay ka dhacday suuqii weynaa ee Hargeysa gaar ahaan suuqii bacadlaha ee Waaheen dhibaatadaasi oo ah masiibo qaran taasi oo saameyn ku yeelatay ganacsatadii iyo bulshooyintii reer Somaliland gaar ahaan bulshada degta Hargeysa taasi oo wixii dhibaato ka soo gaadhay aan ugu ducaynayno in Ilaahay caafimaad degdeg ah uu siiyo dhibaatada ka soo gaadhay hantidoodii iyo dhaqaalahoogiina Ilaahay bedel khayr qaba uu siiyo run ahaantii waxay noognahay suuqaasi inuu ahaa suuqa ugu ballaaran ama ugu weyn suuqyada Somaliland kaasi oo dad fara badan oo reer Somaliland ah ay dhaqaale fara badan ku lahaayeen taasi waxa soo gaadhay dabkaasi waa masiibo Ilaahay nagu keenay waan ka xunnahay masiibadaasi waxa weeyaan tu saameyn ku yeelatay dhaqaalihii wadanka oo u geysatay dhibaato fara badan oo saameyntaasi baaxad leh oo ah inta taariikhdan ognahay dabkii ugu ballaarnaa ee ka dhasha Somaliland iyo waqtigii ugu dheeraa oo dab inta leeg u socdo wax kasta oo yimaada Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa Ilaahay nagu guuleeyay ay naga qaboojiyay dabkaasi ku soo afjaray inuu inta ku ekaado walow baaxadiisu ay aad u ballaarnayd takal waxa weeyaan inaan la wadaagno dareenka iyo murugada iyo dhibaatada uu geystay ummadeena taasi oo aanay ahayn in cid si gaar ah ay dhibtaasi u saameysay ay in wada saameysay ay dhamaanteena aynu damqanayno sidii jid isku mid ah oo dhibtaasi soo gaadhay waxaan la wadaagaynaa murugadaasi inaan la qabno ganacsatada iyo bulshada ku nool caasimada dhibtaasi ganacsi uu soo gaarsiiyay masiibadaasi dabku waana aafooyinka Ilaahay laga magan galo waxaan ku amaanayaa kaalinta xukuumadda ay ka qaadatay ugu horeeyo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi sida degdega ah ee loo magacaabay gudidaasi masiibadaas ka dhacday meesha iyo qaadhaanka lagu taageerayo in ummadaasi dhaqaalihii ay ku weyday ay ummaddu isku tashato oo la taageero dadka dhibtaasi soo gaadhay insha Allah waxaan rajaynaynaa sidii gudidu ay ballan qaaday in muddada inagu soo aadan labada cisho ah khasaaraha dhibtaasi uu geystay dabku ay soo bixi doonto cid kasta oo soo gurmatay haday tahay wadamada jaarka oo ka qayb qaadatay sidii halistaasi dabkaasi looga badbaadin lahaa inaanu sii fidin waan ku amaanaynaa waan uga mahadnaqaynaa taariikhdaana xusi doonta cid ay gurmadkaasi geysatay anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Boorama iyo shacab weynaha reer Boorama waxaan diyaar u nahay inaan dhibtaasi la qaybsano ummadaasi haddii ay noqoto taakula dhaqaale iyo isbarbartaag waxaan diyaar u nahay in kaalin lixaad leh aanu ka qaadano oo aan noqono dadka ugu horeeya ee marka ay hawshaasi soo baxdo annaga iyo ganacsatada iyo bulshada isku duuban aanu ka geysano waajibaadkii nagaga aadana waxa weeyaan waxa loo baahan yahay maadaama masiibadaasi ay dhaqaalaha inta leeg saameyn ku yeelatay in bulshadu ay isku tashato dal iyo dibadba oo wixii ummadaasi hanti ka lumay sidii loo taakulayn lahaa ee loo caawin lahaa la iska kaashado taasi oo inoo saamaxaysa sidii ummaddu marka horeba ay u ahayd ummad isku tiirsan oo wixii dhib iyo dheefba wada wadaagta aynu noqono dad hawshaasi hadii Ilaahay sidii inoo ahayd caadada aynu ka qayb qaadano waxa muhiim ah in lagu cimro qaato masiibooyinku way dhacayaan inta la nool yahay oo adduunyada inta la joogo ayaa loo abuuran yahay in dhibaato dhacdo laakiin waxa loo baahan yahay in lagu cibro qaato oo laga tabaabushaysto oo la sameeyo sidii khatartaasi loo yareyn lahaa aanay mar labaad inoogu dhicin waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ani qofka muslimka ah god laba jeer laga ma wada qaniino marka waxa rajaynaynaa in dhammaan gobolada iyo degmooyinka iyo caasimadu
suuqyadoodu ay noqdaan kuwa u diyaarsan in haddii masiiba ay dhacdo si degdega loo baqtiin karo ama looga hortagi karo. geesta kale isagoo hadalkiisa sii wata duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa waxa uu fariin u diray ganacsatada suuqa magaalada Boorama kaasi oo la mid ah suuqada Waaheen ee uu dabku burburiyay. waxaan soo jeedinayaa dhammaan degmooyinka oo degmada Boorama kow ka tahay in suuqa bacadlaha 400 oo mitir iswareeg ah aanay jirin meel wado oo laga gala, taasi oo ay imika tusaale u tahay in waxaasi ka dhacay bacadlaha Hargeysa ama suuqa Waaheen uu ka dhici karo dhammaan degmooyinka iyo goboladan. waxaa loo baahan yahay sidii gudida bacadlaha aanu hore iskula qaadanay in la helo wadooyin uu dabdamisku ka heli karo oo ka geli karo si loo baqtiyo hadiiba ay masiiba dhacdo Ilaahay naguma keeneen. taasi waa inaynu ka tabaabashaysanaa. waxaynu u baahannahay bishan Ramadaan oo bil barakaysan oo ummaduna ganacsi fara badan ay ka faa'iideysato in la helo in ganacsigaasi muddada bisha ah aan ummadda siinayno inay ganacsigooda ku ganacsadaan. talabaadna ay sida ugu dhaqso badan ay u furaan marka bisha Ramadaan ayna dhaafto haddii Ilaahay yiraahdo. haddii ay bisha Ramadaan u furi waayaan marka bacdayaashaasi barandayaasha iyo wadooyinka xidhan waxay noqonaysaa in mas'uuliyadiina saarneyd aanu gudano si aan uga hortagno si aanay u dhicin masiibo tii dhacday oo kale ah. taasina waxaan ku baraarujinayaa in ummadaasi ku ganacsata ay yihiin ganacsatadayadii ummadayadii ay yihiin ay la xajacla naga hayso, laakiin si aan loo dul qaadan doonin in intaynu dhayalsano ay dhibaato taa dhacday tu lamidii ay nagu dhacdo. waxaan rajaynayaa dhankiisa isagoo hadalka sii wata ayaa duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame waxa uu hambalyo ku saabsan dhalashada bisha barakaysan ee Ramadaan uu u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Somaliland. run ahaantii fariinteedu waxa weeyaan maadaama dal islaam aynu nahay iyo dad islaama sida diinteennu ay banaysay ma banaana in bisha Ramadaan cunto lagu kariyo meelo qarsoodiya. waxaan rajaynaynaa inaanu iska kaashano ciidanka amniga u xil saaran ugu horeeya taliyaha qaybta iyo booliska gobolka iyo degmaduba in fariintayadu ay tahay in cidii lagu soo qabto sharciga la waafajiyo aan loo dul qaadan doonin in meelaha si tuugaysiya loogu kariyo cunto xaaraan ah oo aan la ogolayn. taasi weeyaan fariintan ummadda u diraynaa. ummadda waxaasi ku dhaqantaana inay ka waantoobaan oo aanay caadaysan in noocaas oo kale ay ka dhacdo maadaama aynu nahay dal islaama. waxaan qaadan doonaa kaalinta ugu adag ee hawshaasi wax lagaga qabanayo. Sakariya Cabdi Shafaar Sakariya Saxane, telefishinka caalamiga ee Horyaal TV magaalada Boorama.